السلام عليكم كلنتي wanaagsan casharkeena maanta sideed waxaan ku soo qaadan doonaa haduu Ilaahay idmo sida Windows ka arrange loogu sameeyo ama sida automatic arrange iyo waliba arrange loogu sameeyo arrange waxaan ka wadnaa sidan hadda aan joogno hadeen iconadayda midba meel yaalo oo midba uu meel yaalo hadaba waxay noqonaysaa in qaab daro computerka uu noqdo iconada kugu jiray ay si qaab daro noqdaan marka waxaan rabnaa in aan dhamaantood arrange ka dhigno oo hal meel isku keeno hadaba ina keena halkan ayaan ka wada soconaynaa waxaan rabaa how to arrange applications icon on the GUI horena uga soo hadalnay iconada kugu jira raashadaada sidee loo arrange gareeyaa oo hal dhinac loo isku fayday sida askartii oo kaleeto hadaba ila soco computerka dhexdiisa tagay right click ayaan ku iri computerka shaashadiisa ama desktopka dhexdiisa ayaan tagay right click baan ku iri meel banaan oo shaashada dhexdeeda kadibna waxaan doortay oo aan muuskayga dul geeyay meesha loo yaqaan sort by waxa ii soo baxaysa qaybahan soo socda ayaa sort by markaad ku dhufatid ayaad heli doontaa oo ah name size and items type iyo waliba modify date saddexda midkood ayaad heli doontaa afartaas shay mid alla midka aad doonaysaa oo ku dhufatid ayaa wuxuu noqonayaa in isku bedelo qaabkii aad wax u rabtay ayuu ku noqonayaa afartaas nooc midkood oo iconadaadu isku dhinac kugu fayl doona hadaba yaan warka ku daaline desktopkana keen halkan iconadooda computerka dhan waa ku kala fiirsan yihiin qaadaro miiran baa ka muuqanaysa hadaba si aan hal mar inaan soo jiijido ma fiicna halkan ayaa iska imid gareeyo meel banaan ayaan tagayaa meeshaan noqon karaa tanay noqon karaa meel kasto banaan oo waxba aad shay korkiis ahayn ayaad right click ku leedahay oo dhinaca midig ayaa muuska gujinaysaa kadibna sort by baad tagaysaa waxaad raacaysaa meeshaan name size item type iyo modify waxaan ka dooranayaa kan ugu koobaad tan doorto hal mar okay wuu noqonayaa okay dhamaantood way fayleen sida u baahnaa ayaan in noqdeen marka sidaas ayaa loo arrange gareeyaa mar quraan ku celsho hadii iconadan aan jiidno oo computerka ku dhex firdhino oo qolob meel geeyno oo isku dhex yaacino oo qaarkood kuwaas aan wax ka soo jarno ay noqdaan waxa dhanba kuwa midba meel ay ku horin ay u sameeysan yihiin oo aad u qaab dareysan waxaan sameyn karnaa right click ayaan leenahay kadibna sort by baan dooranay kadibna mid ugu koreysa ama tan ugu dhaxaysa mid alla midaan doorno ayaan ku dhufan karnaa mid alla mid doorto waa isla mid marka hadii sidaan uu kugu dhaco oo dhinaca ay soo maraan iconada rasmiga ah marka la ku celinaysa sorting mid ugu koreysa ku dhufanaysa marka faylka xaq ku faylayaan sidaas ayaa loo baahan yahay in laga dhigo iconada caadiga marka ayuu u muuqanayaa sidii si qurux badan inuu seelka u muuqdo computerkaaga kaasi waa arrange gareyntii hadaba waxaan doonaynaa automatic ahaan inaan arrange gareyno automatic arrange inaan sameeyno oo aan sameeyno in aan laga yeelinba computerkaaga in iconada ama shay kamid la jiido oo shaashada geesida kala la geeyo mid kasta meeshu yaalo lagama dhaqaajin karo ama se dhinaca ay yaalaan oo bidix computerka bidaxaan baa wax loo arrange gareeyaa meeshiisaas lagama dhaqaajin karo okay hadaba markaan doonayo inaan sameeyo maxaa leeyahay right click ayaan ku leeyahay desktop icons blank area meel banaan desktopka meel kamid ayaan ku dhufanayaa oo waxaan leeyahay right click ayaan leeyahay desktop blank area meel banaan desktop kamid ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan dooranayaa view baan dooranayaa meesha hadda ma aha laakiin view baan dooranayaa oo sort aan isticmaalnay laakiin hadda view baan isticmaalaynaa kadibna waxaan ka dooranaynaa meesha loo yaqaano auto arrange icons halka markaan doorano waxaan heli doonaa in aan xirno iconada noona arrange gareysan yihiin okay hadaba aan fiirino soo noqonayaan iconadan waa kuwan hadaan jiidno way naga yeelayaan maanta hadaan qaar kale soo celino way naga yeelayaan oo meel dhex geeyno markaas aan computerka shaashadda dhanba ku cayaarno haba qaar bay gees u kaxayno waan heli karnaa waxa weeyaan waa sameyn karnaa wax alla saan qaabkan u rabno hadda waa u yeeli karnaa laakiin automatic arrange marka dhahno ama aan automatic arrange ku dhufano sidiisii ayuu halkan ku soo faylayaan kadibna wax dambe kama dhaqaaqi karaan hadaba sidaan u sameeyno aan wada soconno meel banaan ayaa timid right click ayaad siisay muuskaaga dhinaca bidix ayaad gujisay dhinaca midig ayaad gujisay kadibna waxaad sort by maanta ma rabtid view baad tagaysaa view baa xagga u raacaysa calaamada yar oo ciira cadaan buluuga cadaan ciirada kadibna hoos baa u raacday meesha leeyahay automatic arrange oo qaybta hoos marka laga soo dirsho qodobka saddexaad noqonaysa oo ta arrange icon ay ku qoran tahay ayaa hal mar muuska ku gujisay waxa dhacday dhamaantood way soo yaaceen
file bayna soo galeen haddii aan mid ka mid ah qabanno xagga geyno marka sii dayno waxa dhacaysa wuu soo cararayaa haddaan dhammaantood wada qabanno xagga geyno marka sii daysidba wuu soo fakanayaa marka sidaas ayaa loo yiraahdaa automatic arrange sidaas ayaa loo sameeyaa automatic arrange haddaan aan ka bixino waxa dhacaysa in sidii aan check ka qaadno in la jiijidi karo icon-nadan oo mid walba meesha aad geyn kadib waa markaan check ka qaadno markaan saarnana view baan ku dhufanay kadibna waxa automatic arrange ayaan hal mar check saarnay waxa dhacday way soo fayleen sidaas ayaa loo isticmaalaa automatic arrange taskbar waa maxay taskbar waxa weeyaan waa xariiq weyn oo jiidan oo computerka hoostiisa taala kadibna waxa dhinaca waxa ka muuqanaya chargerka iyo saacadda iyo waxa ka muuqanaya dabka dhinaca waxa ka muuqanaya waxyaabo ku furnaa dhinacana waxa ku leedahay wax loo yaqaano start menu oo calaamadan afarta barood leh ayaa start menu la yiraahdaa computerkaagana waa ku arki kartaa windows kasta ku jira computerkaaga uu leeyahay marka calaamadani saddex section ayaa loo kala qaybshaa qaybta koowaad waxa loo yaqaanaa start bottom ama start menu start bottom oo calaamadan yar afarta barood geesta ugu xigta oo u eg keyboardka keyboardka calaamada loo yaqaano afarta barood leh oo window logo loo yaqaano ayay aad u eg tahay other programs baa jira other programs waxa weeyaan waa kuwan kan ka soo bilow ilaa inta u dhaxaysa ay other programs la yiraahdaa iyo notification area oo ah dhinacan batteriga iyo saacadda iyo internetka iyo dabka iyo waxaas oo dhan geestan oo dhan ayaa loo yaqaanaa notification area marka saddexaas qaybood ay u kala qaybsan tahay maxaan niri waa start bottom waxa way start bottom other programs iyo notification area start bottom waa dhinacaas other programs waa kuwan dhexe notification area waa dhinacaas saddexdaas nooc ayaan u kala saarnay haddaba waa taskbar iyo shaqada inoo qabaso casharka 9aad